kasta la yidhi xoolo iyo caruur iyo wax walba way helaysaan haddaba astaqfir allah halay sheegayna niyad oo Soomaaliyeed oo muslima oo Maraykan joogo shaqaysta oo yidhi maalintii 2,000 astaqfir allah baan sameeyayo wax haba yaraatee nolosheeda soo hortaagaa ma jiraan hooyaday baan maalintii dambe way dukaan haysato waxaan ku yidhi hooyo haddaad laftaada astaqfirlada badiso dukaanka ugu camirmaya islaantiina way samaysay dukaankeedu baa camirmay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa layna barayaa asbaab kale oo aan ahayn asbaabtan maadiga aynu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbu samaawaati inuu labadaba isagaa qaanuunkan dhigay qaanuunkan fiisigiska iyo dhaqaalaha nolosha lagu wato isagaa dhigay maca daalika isagaana ka tallaabsan kara ولذلك بقى كرامات يا معجزات يا وحاصل دم وام حي وقانون كان نقانو لقى طلاب سنة يدي كرامات ووحين ونقانو لقى طلاب صدي ولذلك سورة دني وحين برس أمريكا فتن كدمانتيت هداي فتنة دينية هاي يا هداي مد مالتي يا هداي مد علمتها هاي يا هداي مد سلطة هايبة إن لقى طلاب سنة كره هدات سورة دني منهج كده فهمتي قفك سورة دنا أخرية أضاء له نور بالغ نور بالله إفيا وبين الجمعة والجمعة وكيف سكر بالله إفيا هل أنا سورة دتني وحي بريسا قفك مسلم كا نلش وحي هذا وح عقبه وحي هذا مشكلات كأهرية هذا وحي هذا هي مبديات وقلق بيلانا وحي سورة دني كبريسا سكينة ده حسلوني ده يطمئنين ده iyo haddaad suuradda tan akhrido in qalbigu ku xasilo oo aanay waxaas ku argagax gelinin la xoog galba ku argagax gelinaya wala dhaqaalay ka badanayaan ba ku argagax gelinaya wala dunidaanu maamulaba ku argagax gelinaysa waayo waxaad rumaysatay rabbu samaawaati wal ardi inad ku xidhan tahay oo ku taxantay walidaalika ayuha alahibba haddaynu isnaan suuradda ka warrama runtii wax badan baynu sheegi karnaa أنا إن قصص كمدنا ما إن تفصيل تفاسير تقول لك ترى لا يدي تفصيل